بسم الله الرحمن الرحيم runtii aad baan uga xunnahay arrintii shalay ka dhacday fadqiladii shalay ka dhacday degmada Burtille runtii arrintaas waxay dhiirigelinaysaa dhaqaale xumo iyo burbur waxay dhiirigelinaysaa bulshadii iyo shirkadihii iyo dadkii maal gashan lahaa dalkan iyo dadkan maal gashan lahaa inuu ku dhaco wax la yidhaha niyad-jab runtii in la beegsado ama la taargetgareeyo shirkad weyn oo shirkadihii dalka ah oo runtii muhiim gaara u lahayd dalkani runtii aad baan uga xunnahay shacab ahaan arrintaa iyada ah dowladda kumaana ogeyn dowlad taag daran dowladda puntland waa in si deg deg wax ugu qabataa dowladdu canshuur bay qaadaa shacabka iyadaa wakiilka ah shirkadaha iyadaa wakiilka ah tabardarro iyo mataqaanaa dowlad taag daranna kumaana ogeyn arrintaa iyadaa runtii waxay fool xumaynaysaa oo suurad xumaynaysaa puntland iyo dhammaan dadka shacabka ah ee reer puntland ayay suurad xumaynaysaa waxay dhiirigelinaysaa in dalka aan la maal gashan hadday noqon lahayd shakhsiyaad hadday noqon lahayd shirkado dalka inaan la maal gashan oo qof walba hantidiisa u boqo sababtoo ah waxaa iska dhacaysa shakhsiyaad inay isaga duulaan shirkado iyo mataqaanaa goobo ganacsi oo ay burbur iyo dhibaatooyin u geystaan marka arrintaa iyadaa waxaan leenahay shacabka inay ka kacaan dowladda inay wax ka qabato shacabkuna ay mataqaanaa ay ka hadlaan runtii aad baan uga xunnahay shalay dhammaan waxaa go'ay isgaarsiinta iyo adeegga mataqaanaa bulshada ayaa go'ay waad dareemi karaysaa muddo saacado ah oo mataqaanaa isgaarsiinta iyo adeegga dalkan ka go'an tahay weliba bulshada ay ku tiirsan tahay waad dareemaysaa dhibaatada ay keeni kadho marka runtii aad baan uga xunnahay dadka ficilka noocaas samaynana waxaan leenahay ka waantooba waxay noqonaysaa challenge cid walba oo mataqaanaa cid xumaynaysa inay shirkadaha iyo meelaha public sectorska inay mataqaanaa ay taargetgareeyaan waxaan leenahay dowladda puntland iyo shacabkeedaba isku si aan uga soo warjeesano all the best magacay waa yuusuf ciise ka mid a shacabka magaalada gaalkacyo kana mid a ganacsatada magaalada gaalkacyo waxaan cambaaraynaa arrintii shalay ka dhacday degmada Burtille oo khasaaruhu ku gaaray shirkadda Golis iyadoo xilligan la joogo 2025 oo la marayo in noloshii ay ku tiirsanaato teknolojiyadda ay noloshii dadka oo bayska ahayd oo wax iibsashada ugu yarayd ay ku xiran tahay isgaarsiintii in la jaro isgaarsiintii oo shirkad weyn oo magac iyo maamuus waddanka ku leh dhibaatada noocaas loo geysto aad iyo aad baan u cambaaraynayaa waa arrin laga baaqsan karay xaqiiqatan laga yaabo in si hoose loo xallin karay maadaama waddanku hadda horumar gaarayo oo shirkada waaweyn la hiigsanayo waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa bulshada meel walba ay joogaan inay ka qayb qaataan shirkadaha waddanka loo leeyahay oo dadku leeyihiin inay horumar gaaraan si loogu dhiirado loogana fogaado in ganacsada walba xoogaagiisa uu ama Afrika la aado ama Carabaha la aado waxaan soo dhaweynayaa juhdiga tirada badan oo shirkadda isgaarsiinta Golis ay gelisay deegaanada Puntland oo wadamo gaariwo ah ay gaarsiisay adeegyada marakana lagu baxsaday markii shilin Soomaaliga u istaagay lacagta sahalka ama electronic money-ga nooc walba oo shirkaduhu leeyihiinba ay noqotay maanta haddii shirkaddu istaagto in wax gadashadu istaagto nooc walba ay tahay marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku boorinayaa shacabka shacab weynaha iyo dowladdaba in laga wada shaqeeyo amniga guud lagana wada shaqeeyo badqabka shirkadaha waaweyn oo maalgashiga xoogga leh waddanka geliyey dowladdana mas-uuliyad ayaa ka saaran ilaalinta hantida bulshadu isu geysatay oo milyuumaadka dollar gaaraya haddii arrintan si fiican looga soo wada horjeesto waxaa yaraanaysa inay khasaarooyinkan kala dhacaan oo ciladahan kala yimaadaan shalay hadda internetka keliya go'ay hadduu go'i lahaa isgaarsiintu ama ay go'i lahayd lacagta electroniga oo wax lagu iibsado magaaladu indhaha isku qabsan lahay siiba laga bilaabo Burtille iyo wixii ka soo rogan oo deegaan aad u ballaaran ay tahay marka waxaa la rabaa cid walba oo wax tirsanaysa inay miiska wadaxaajoodka ku galaan qofku inuu isagu dhul isku dhufta isagaa u dhutiyaa la yidhaahdaa
qofkii isaga waxaa geysta haddaysan isaga saamayn waxay saamaynaysaa waalidkii walaalihii familkiisii bay saamaynaysaa marka waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa shirkadaha dulqaadka ay samaynayaan dhabar adeyg ay ku shaqaynayaan waxaan kaloo soo dhoweynayaa in shirkadaha badqabkooda ay noqoto waxay ku xisaabtami karaan oo qof walbana ku soo dhiiran karo in ay dowlad ilaalinaysa iyo shacab u doodaya ay jiraan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha iyo shirkadda golis iyo intii ka qayb qaadatay oo ka daqnatay inay hawshaan xalliyaan